wasiirka wasaaradda ganacsiga warshadaha iyo dalxiiska ee Somaliland oo maanta warbaahinta kula hadlay xafiiskiisa isagoo uu heliyo agaasimaha guud ee wasaaraddaasi ayaa tafaasiil ka bixiyay shidaal ay Somaliland keentay sharikadda Trafigura oo ka mid ah sharikadaha caalamiga ah ee ka ganacsada dhinaca shidaalka waxaana wasiirku sharaxaad ka bixiyay faa'iidooyinka Somaliland ugu jira in sharikadaasi ay shidaalka keento dekedda isla markaasina aanay jirin wax lacaga oo marka hore laga rabo ganacsatada doonaysa shidaalkaasi inay iibsadaan balse marka uu soo gaaro dekedda Berbera ay sharikadaasi ka iibin doonto dadka baaci mushtarka ah ee ku hawlan dhinaca shidaalka waa sida uu sheegay wasiirka wasaaradda ganacsiga ee Somaliland shidaalkani waa furisti albaabka wuxuu ku yimid iibka aaminaad waxa very important oo fiirisiin inagoo la ixtiraamsanayn 14,000 oo metrik tan bay ku soo shubeen shalay shidaalka horta iyaga leh laakiin si aaminaadaas muhiima wax collateral oo la weydiiyo jirto waa la aamin dhinaca kale markaad ka fiiriso shirkadani kaba yar way ka weyn tahay shirkadda DB1 taana faateedu waa ixtiraaf damni waxaana soo jiidanaysaa taasi DB1 oo waxbay soo jiidatay tanna waxyaabo badan bay soo jiidanto ka sii waaweyn waxaan u arkaa guul shalay markabkii baaday guul aw inoo soo jiiday baan arkaa anaga markaa waxa noo muhiima haamaha la dhisayo aad u waaweyn waxay noqon doonaan ubadkeena ku ay dhaxlaan aakhirka way dhisayaan waxa la soo baxayaan way nagu soo wareejinayaan haamaha la dhisana faantooda waxaan ku yeelanaynaa dawladda Somaliland budgetkeedu wuxuu ku yeelanayaa waxa kirada iyo qayb ku yeelanaya waxa kale muhiim ah oo jirta in transit business-kaasi lacag fara badan laga soo gali doonto shaqaaleynna way ka imanaysaa dadku waxay u qaateen baacmistari baa jiray in la ka oo ka baacmistareyn jiray shidaalka dawladdu weerar kuma aha dawladdu inay dhaqaalayso iyaga way rabtaa siday wax ku soo iibiyeen waa dhibaato iyo lacag la sii xamaalo iyo dhibaatada iyo moogtahay hawlo badan oo mashaakil ku jira iyagoo bilaa dhibaato oo lacag la sii xamaalayna jiray oo shidaalkii lacag la inaga qaadin halkan la keeno iyo iibsanayaan lagu wareejinaya waan ugu tala galayna margin inay ka helaan fiican waa la soo dhaweynaya iyagana hujuum laguma aha dadka wadanka soo kariyay waa baacmasharigeed inay koraan maahine inay daciifaan cidima rabto waxa iminka aan wadnay waxa weeyaan in haamo waaweyn oo casriya ay ka dhisaan Berbera taan ugu tala galayna ma aha waxa isticmaalkeena shidaalku waa wax iska yar waxaan ugu tala galay waxa weeyaan inaan baacmashtar la sameeyno jiiraanka inaan la tartano jiiraanka oo qayb ka qaadan shidaalada lagu isticmaalo wadamada inaga dambeeya oo ka helo dakhli wadankeena anfaca dhanka kale wasiirka wasaaradda ganacsigu waxa uu sheegay in hanaanka dhanka badbaadada awgeed loo sameeyay heshiis u dhaxeeya sharikadaha Dahabshiil maamulka haamaha kaydka shidaalka ee Berbera iyo Telesom si markaasi loo abuuro jawi nabdoon oo shidaalkaasi lagu kaydin karo waxaan wada galay Dahabshiil Group iyo bot oo tii dawladda ah iyo Telesom heshiisaan galay si aan u abuuro shirkad gaar ah oo nabadgelyada iyo badbaadada ka shaqeysa haamaha waayo haddii meeshu bilaa badbaado tahay ciidana shidaal ku soo shuban mayso waayo dawladaha shidaalka aan rabnay inay naga qaataan lacag waa loogu shubayaa shidaalka haddayna ogeyn in meeshu ay nabadgelyo tahay kuma soo bareerayaan taasina waa guul kale oo gaadhay oo bilaamaysa degdeg meelaha shidaaladu ay yaalaan nabadgelyadeeda waxaan ka dhigaynaa insha Allah casri iyo nabadgelyo Cabdishakuur Dayib Maxamed Home Cable TV Hargeysa